maanta waxaan doonayaa inaan idiin sharaxo filim riwaayad Amerikaan oo la yiraahdo Green Mile si degan u daawo. Dhismaha filimka ayaa la dejiyay intii lagu guda jiray waqtigii Great Depression-ka ama xilligii niyad-jabkii weynaa. Waa xilli ay dadku u dhimanayeen sidii ay shaqo iyo lacag u heli lahaayeen. Xaaladda bulshadu ma ahan mid caadi ah, laakiin Paul waxa uu helay nasiib oo wuxuu ilaaliye ka yahay xabsiga gobolka Louisiana. Xabsigu wuxuu ka kooban yahay qolal loogu talagalay dhimashada oo loo yaqaan Green Mile. Paul waxa uu mas'uul ka yahay dambiilayaasha lagu xukumay dilka. Sanadkii la soo dhaafay waxa uu dib kala kulmay shaqada sababo la xiriira caabuqa kaadi haysta. Waa inuu si joogto ah u qaataa dawooyinka si xanuunka uu u yareeyo oo si dhib leh ayuu u kaadin karaa sababta darteeda. Ilaalada saaxiibadiisa waa dad naxariis badan marka laga reebo mid la oran jiray Bersim. Waxaa loo magacaabay xilkan ilaalada sababtoo ah xiriirada aabihiis. Mar walba uu Janice helo wuxuu muujiyaa qofxumadiisa, wuxuu maxaabiista ula dhaqmaa sidii xoolo oo kale, mana uu ixtiraamo dadka ka sarreeya. Galbaha ka mid ah Bersim wuxuu keenay dambiile lagu magacaabo John Coffey isagoo ku jeesjeesaya dadka hortooda oo ku tilmaamay wax waqtiyay. Asxaabtiisa ayaa aad uga carooday shakhsiyadiisa foosha xun. Dambiilaha John waa nin aad u xoog weyn marka loo eego ilaalada, laakiin waa aamus badan yahay oo degan yahay. Paul waxa uu la yaabay in ninka sidan u murqaha weyn uu ka walwalsan yahay in habeenkii leerku tagayo sababtoo ah wuxuu ka cabsanayaa mugdiga. Ka hor intuusan bixin, John wuxuu gacantiisa ku salaamay Paul. Waxay ahayd ficil aysan dambiilayaasha kale weligood samayn. Wardiyihii ayaa aad u xiiseynayay xogta ku saabsan ninkan. Wuxuu soo ogaaday sababta xabsiga loo dhigay. Bishii hore 2 gabdhood ayaa laga afduubtay ardayga dambe ee gurigooda. Aabihii markii uu ogaaday isaga iyo dadkii tuulada waxay abaabuleen inay baadigoob galaan. Waxay heleen John oo si aan meer qab lahayn u ooyaya isagoo haya meydka 2 gabdhood. Waxa lagu eedeeyay inuu gabdhahaasi faraxumeeyay oo uu dilay. Maadaama uu wax cadeyn kala aan lahaynin, waxaa dusha laga saaray isaga. Kadib Paul ayaa dibadda kula kulmay maamulaha xabsiga Hal Morris. Hal ayaa shaaca ka qaaday in Bersim uu codsaday shaqo maamulka isbitaalka dhimirka, taasoo uga macno ah waqti fiican iyo lacag fiican in uu shaqaysanayo. Warkan wuxuu farxad u yahay Paul sababtoo ah asaga iyo saaxiibadiisa waxay ka daaleen inay xaliyeen shaqaaqada Bersim. Maamulaha ayaa sidoo kale u sheegay in xaaskiisa Melinda aysan xaalad fiican ku jirin, waxayna la ildaran tahay buro maskaxeed dilaa ah taasoo dhigtay sariirta dhimashada. Hal si joogto ah ayuu uga walwalsan yahay oo wuxuu dareemayaa inuusan hayn tabar uu ku badbaadiyo xaaskiisa. Habeenkii Paul wuxuu la hadlay xaaskiisa oo u sheegay arrinta ku saabsan John. Wuxuu sidoo kale ka cudur daartay inuusan mar dambe gogol la samayn karin sababtoo ah xanuunka daran ee uu keeno caabuqa kaadi haysta. Xaaskiisu waxay doonaysay inuu u tago dhakhtarka, laakiin Paul aad ayaa u xishoonayay inuu cudurkan public la tago. Maalintii xigtay, mid ka mid ah waardiyayaasha oo lagu magacaabo Brutus ayaa arkay jiir ku jira qaybta qololka. Waxayna isku dayeen inay qabtaan, laakiin wuxuu ku dhex orday qolkii kaydka oo xiran. Iyagoo ka baqaya inuu raashinka cuno, waxay nadiifiyeen qolkii oo dhan si ay u raadiyaan, laakiin la yaab, jiirka ayaaba maqan. Dhowr saacadood kadib, Bersim wuxuu arkay jiirkii isagoo aad u cadhaysan oo isku dayay inuu dilo ayuu dhankiisa soo aaday. Jiirku wuxuu dib ugu noqday qolkii kaydka, taasoo Bersim ka khasabtay inuu qolka nadiifiyo sidii asxaabtiisa sameeyeen oo kale. Ilaaladu uma aysan sheegin inay mar hore isku dayeen arrinka, taasoo ay daawanayeen isagoo maskaxdiisa ku wareertay raadinta jiirka. Paul wuxuu ku canaantay Bersim inuu buuq ka sameeyay meelaan waxba ool, taasoo keentay in Bersim uu ixtiraam darro kula kaco isaga iyo asxaabtiisa. Wuxuu ku hanjabay inuu isticmaali doono awoodiisa si uu uga eriyo dhammaantood shaqada. Paul wuxuu la wadaagay in haddiiba uu mar kale hanjabaad noocaasa sameeyo ay bari doonaan cashar, xataa haddii ay ku kacayso qiimaha shaqadooda. Muuqaalka xiga, Paul iyo asxaabtiisa waxay diyaarinayaan kursiga korontada ee fulinta dilka xiga. Qaybta ugu muhiimsan ee dilku waa in la saaro isbuunyo qoyan madaxa dambiilaha ka hor inta aan koofiyadda korontada lagu dhejin. Haddii isbuunyada laga saaro,
qofku wuu rafaadi doonaa dhimashadiisa ka hor, laakiin haddii ay sii jirto korontadu waxay si toosa u mari doontaa madaxa, dilkuna si habsami leh ayuu u socon doonaa. habeenkaas Brutus ayaa hogaaminayay dilka dambiilaha. Paul uu og yahay in Percy uu sugayo inuu markhaati ka noqdo dil ka hor inta uusan u wareegin shaqada kale. markii arrintan la hordhigay, Percy wuxuu daaha ka qaaday inuusan doonayn inuu markhaati ka noqdo, balse uu raadinayo inuu mas'uul ka yahay dilka maxbuuska. muuqaalka soo socda, mid ka mid ah maxaabiista oo lagu magacaabo Dale ayaa mar kale helay jiirka oo u magacaabay Master Jingles. waxa uuna la yaabay garaadka xayawaankan. ilaaliyaasha ayaa u ogolaaday Dale inuu Master Jingles uu sii hayo xayawaankan maadaama aanay iyagu waxba yeelin. kadib waxaan aragnaa Paul oo mar kale la kulmay maamulihii Hal. markan taliyaha ayaa ka walaacsan maxbuus cusub oo maanta xabsiga la dhigay. magaciisu waa Will the Bill oo ah mid waalan oo 3 qof ku dilay meel lagu hayay. waa mid madax adag, sidaa darteed ay ilaaladu ka taxadaraan hawshiisa. nasiib darro, Paul maalintaasi infectionka kaadihaysta ayaa ka dhigayay inuu aad u xanuunsado, uu awoodi waayay inuu u fiirsado waxa agaarkiisa ka dhacay. 2 ilaalo ayaa xabsiga keenay gacan ku dhiglihii Bill. wuxuu iska dhigayay inuu wareersan yahay. kadib iyagu ayuu weerar ku soo qaaday, waxayna isku dayeen inay xakameeyaan, laakiin ninku wuxuu ku dhuftay Paul gumaarka, taasoo sii kordhisay xanuunkii uu markii horeba u adkaysanayay. sidoo kale waardiye kale ayaa ku dhow in ceeji lagu dilo. qofka kaliya ay joojin karaana waa Percy. isagu waa uu ka dambeeyaa gacan ku dhiglaha, isagoo si buuxda u eegaya isaga, laakiin waxa uu la barafoobay argagax, waxna waa sameyn waayay. ugu dambeyntii Brutus ayaa soo galay, uu joojiyey, uuna soo saaray gacan ku dhiglihii. markii kuwii kale u keeneen qolka, Paul meeshii ayaa lagaga tegay oo xanuun buu la dhacay. John ayaa arkay arrinkan, wuxuuna ka codsaday inuu u soo dhawaado xaalad degdeg ah awgeed, xitaa isagoo aad u xanuunsanaya. Paul wuxuu u tegay John kaliya si uu u soo qabsado. John waxa uu gacanta ka saaray inta u dhaxaysa labadiisa lugood, wuxuuna sameeyay wax sababa inuu xanuunkii degdeg uga baxo. markii uu sii daayay, maxbuuskii wuxuu noqday mid daciif ah, sababtoo ah xanuunkii Paul u adkaysanayay ayaa isaga ku wareegay. ilbiriqsiyo kadib waxaa afkiisa ka soo duulay daruur xabxab oo kale ah, caadi ayuuna ku soo noqday. Paul oo naxsan ayaa weydiiyey waxa ku dhacay. John ayaa ku jawaabay kaliya inuu caawiyey. xaqiiqdii wuxuu ka nuugay cudurkii Paul, kadib naftiisa ayuu gaaray xanuunkii, laakiin markaas kadib xanuunkii ayaa afkiisa ka baxay. boroseska kadib John waa daalan yahay, uuna seexday. John halka Paul uu aaday dhanka musqusha, wuu yaabay, wax xanuuna ma dareemayo. habeenkii guriga ayuu ku soo laabtay, wuxuuna gogol la sameeyay xaaskiisa. dhacdada darteed Paul aad buu u xiiseeyay John iyo sheekadiisa, waxa uuna u tegay qaadigii John si uu wax badan uga weydiiyo ninkan. sida uu qabo Paul, qof sidii caruurtii oo kale ah oo dambilaawo ah, inuusan geysan dembigaas, laakiin qaadigu waxa uu ku fakarayay si ka duwan. Paul waxa kale uu ogaaday in aanay cidina garanayn halka uu John ka yimid, sababtoo ah markii ugu horreysay ee la arkayay waxa uu ag fadhiyay meydka gabdhaha. maalintii xigtay, Paul wuxuu John siiyey dhowr xabo oo roodhi ah, isagoo uga mahadceliyay caawintiisa. John ayaa hadiyadda la wadaagay saaxiibadiis Dale iyo Master Jingles, halka Bill uu erayo cunsuriyeysan tuurayo. maalmaha xiga ayuu dhib badan la soo baxayaa. dadka ayuu candhuuf ku tufaa, meeshuu doono ayuu ku kaadiyaa, waardiyayaasha ayuu yasaa. intaa ka badan waa u dulqaadan waayeen, waxayna ku xireen qol ciriiri ah. dhanka kale waxaa soo dhowaatay maalintii daldalitaanka Dale. ma ka baqayo inuu dhinto, laakiin waxa uu ka walaacsan yahay in Master Jingles oo ah jiirka la dilo dhimashadiisa kadib. Brutus wuxuu ka ballan qaaday inuu u duri doono jiirka meel lagu magacaabo Mooseville oo jirarka lagu xanaaneeyo oo ku taala Florida. maalintaas kadib Bill dib loogu celiyey qolkiisii, laakiin waxba ma sugi karo ka hor inta uusan dhibaato kala geysan. wuxuu soo qabsaday Percy oo meel aan habboonayn qabtay, kadib si dhaqso ah ayuu u sii daayay, laakiin Percy ayaa isqoysiiyey. qof kastaana wuxuu go'aansaday inuusan ka hadlin bahdilaada loo geystay Percy, laakiin Percy wuxuu maqlay Dale oo ku jeesjeesaya. sidaa darteed markii maalinta uu la kulmay Master Jingles, waa uu ku tuntay jiirkii oo uu dilay. Dale ayaa aad u niyad jabay, wuxuuna dareemay sidii in ilmihiisa la dilay oo kale. ilaaladu waxba kama qaban karaan arrinkan, laakiin John wuxuu Paul ka codsaday inuu u soo dhaweeyo Master Jingles oo ah jiirka, wuxuuna ku afoofay calaacasha, uuna soo noqday jiirkii.
qof kasta wuu naxay. Dalena waxa ugu mahadceliyay ayuu garan waayay. Maalintii fulinta ayaa ugu dambeyntii timid. Percy ayaana mas'uul ka ahaa markan. Paul wuxuu rajeynayay in kadib dilka Dale uu ugu dambeyntii u wareegi doono shaqada kale. Dale waxa la dhigayaa kursiga horyaal daawadayaasha. Percyna wuxuu bilaabayaa fulinta. Wuxuu saarayaa koofiyadda korontada, wuxuuna si ula kac ah u ilaawayaa isbuunyada la qoyn jiray ee laga hormarin jiray koofiyadda korontada. Tanina waxay sababaysaa inuu rafaado oo la dhibaatoodo xanuunka dhimashada. Isla mar ahaanta John wuxuu dareemayaa xanuunka Dale ee korontada. Dhammaadka dab ayaa ka dulbaxaya Dale, halkaas ayuuna ku dhimanayaa. Intaa kadib Percy ayaa sheeganaya inuusan ogeyn in isbuunyada loo baahan yahay iyo in kale. Brutus oo xanaaqsan ayaa ku feerayay beenta uu sheegay darteed dib ayaa loo qabtay si uusan wax ugu geysan. Dhacdadan awgeed Percy waxa lagu qasbay inuu si degdeg ah ugu wareego shaqadiisa cusub ee xarunta dhimirka. Paul ayaa markan u tagayay John oo ogaaday inuu isku dayayo inuu isticmaalo awoodiisa si uu u caawiyo Dale. Si kastaba ha ahaatee, xitaa isagoo xanuun badan soo gaaray ma uusan awoodin inuu badbaadiyo. Waxa intaa dheer, xanuunka waxaa sidoo kale dareemay Master Jingles oo ah jiirka oo tan iyo markan hadba dhinac u cararayay. Muuqaalka xiga, Paul iyo waardiyaha kale ayaa wada cuntaynaya. Intii uu joogay guriga maamulaha xabsiga wuxuu arkay xaaladda ka jirta. Xaaskiisa Melinda ayaa marba mar ka dambaysa xasuustu ka sii lumaysaa sababo ka dhalatay burada maskaxda. Sidaa darteed waardiyaashu waxay go'aansadeen inay keenaan John guriga maamulaha si uu u caawiyo Melinda, laakiin waa inay ku sameeyaan si qarsoodi ah maadaama lagu ciqaabi karo inay u ogolaadaan gacan ku dhiglaha inuu xabsiga ka baxo. Maalintii xigtay waxay hirgeliyeen qorshihii, waxayna galaas darooga ah siiyeen Belle, waxayna sidoo kale garaaceen Percy oo ay geliyeen qol ciriiri ah, afkana ka xireen si uusan cid kale ula wadaagin. Markii John loo sheegay qorshaha, wuu ku farxay inuu qof soo caawin doono. Waxay kaloo ka dhigan tahay inay waardiyayaashu aqoonsadaan sida uu ninkan u wanaagsan yahay. Si kastaba ha ahaatee, markii ay soo baxeen, Belle oo weli miyir qaba ayaa qabsaday gacanta John sababo jira awgood. John ninkan aad buu uga baqay, laakiin waa uu sii daayay, hurdo ayuuna la dhacay. Banaanka John farxad ayuu dareemay inuu arko dhulka iyo cirka. Markii ay guriga yimaadeen, waxa hor istaagay maamulihii. Paul ayaana u sharxay waxay damacsan yihiin. Inkastoo uu mas'uulku aanu rumaysnayn in gacan ku dhiigle sida John oo kale uu leeyahay wax awood ah, haddana wuxuu u ogolaaday inay la kulmaan xaaskiisa. John aad buu ugu dhawaaday wejiga Melinda oo afka ayuu wax ka nuugay. Markiiba guriga wuxuu bilaabay inuu gariiro oo nololku si xoog leh u iftiimaan. Ilbiriqsiyo kadib John wuxuu bilaabay inuu dhacdhaco oo qufaco halka Melinda ay soo fariisatay. Way caafimaad qabtaa, waxba kuma xasuusato wixii ku dhacay. Markan John ma awoodo inuu iska saaro xabxabka oo wuxuu cudurka ku xadidmay naftiisa. Isla markiiba Melinda way istaagtay, waxayna aqoonsatay John, waxayna sheegtay inay kula kulantay mugdiga uuna siiyey nuurkiisa. Ma aysan fahmin siday wax u dhaceen, laakiin way ogtahay inuu John uu nolosheeda badbaadiyay si uun ka hor inta uuna tegin. Waxay katiinadeeda u siisay hadiyad ahaan. Xabsiga dhexdiisa, Percy waa laga fasaxay qolkii ciriiriga ahaa. Markii uu soo bixi rabay, John ayaa qabtay, wuxuuna xabkii cudurka ku sii daayay afkiisa. Cudurku wuxuu hadda u wareegay Percy, wuxuuna bilaabay inuu dawaqmo sidii Melinda oo kale. Intii uu marayay qolka Belle hortiisa, wuxuu xabad ku dhuftay Belle. Intii ay ilaalada kale qabanayeen Percy, wuxuu afkiisa ka sii daayay xabkii cudurka. Markii la weydiiyey sababta uu tan u sameeyay John, gacantiisa ayuu ku fiiqay Percy. Paulna waa uu fahmay. Tanina waxay ka dhigaysaa inuu arko in Percy uu ahaa kii afduubtay gabdhaha yaryar ee John lagu eedeeyay inuu dilay. John wuxuu ogaa inaysan jirin cid cadaaladda hor keenaysa ninkan, waana sababta uu noloshiisa u soo afjaray. Kadib booliiska ayaa yimid si ay u baaraan dhimashada. Percy ayaa su'aalo la weydiiyey, laakiin waxay u muuqataa inuu ku sugan yahay xaalad nooc kale ah. Waxaa la isla gartay inuusan shaqada sii wadi karin, waxaana loo diray xarunta dhimirka si la yaab leh, isla meeshii uu rabay inuu u wareego oo uu ka shaqeeyo. Dhanka kale, maalintii John la daldali lahaa ayaa soo dhawaatay. Hadda Paul wuu og yahay inuu yahay midaan waxba galabsan, mana uu garanayn waxa uu sameeyo. Xaaskiisa ayaa dareentay xaaladiisa murugsan, waxayna u soo jeedisay inuu la hadlo John si uu u arko waxa uu doonayo. Muuqaalka xiga,
John wuxuu muujinayaa inuusan rabin inuu sii noolaado, waxa uuna dareemi karaa xanuunka dhammaan dadka kale ee ku xeeran, taasoo duco iyo habaar isku mar ah. Ma rabo inuu xanuun dambe dareemo, sidaa darteed in la dilo waxa ay noqonaysaa falkii ugu weynaa ee naxariis ah ee loo sameeyay John. Codsigii ugu dambeeyay, John wuxuu sheegay inuu doonayay inuu daawado filim. Maalintii uu dilka dhacayay, John waxaa la geynayaa hoolka dilka ee dadka hortooda. Aad ayay u caynayaan, waxayna ku sheegeen inuu yahay gacan ku dhiigle iyo mid fara xumeeyay gabdho yaryar. Si kastaba ha ahaatee, falcelinta waardiyayaasha waa mid ka duwan taas. Marka ay arkaan isagoo ilmeynaya, Paul wuxuu damcay inuu maro wejigiisa ku daboolo, laakiin John ayaa u sheegaya inuu ka cabsado mugdiga. Ugu dambeyntii waa la karanteeyay, waana la dilay. Muuqaalkii wuxuu u wareegayaa sanado kadib. Paul waa da', wuxuuna ku nool yahay guri oo ay ku nool yihiin dadka howlgabka ah. Qofna looma ogola inuu bannaanka u baxo maadaama ay u nugul yihiin inay lumaan, laakiin Paul waxa uu qaataa socod dheer subaxnimo ah maalin kasta. Waxa uu aadayaa carish cidlo ah oo keynta ku dhex yaala, wuxuuna daawadaa qof gudaha ku jira. Galab ka mid ah galbaha, dadkii howlgabka ahaa ayaa daawanayay filin hore ah. Waa isla filinkii uu John daawaday codsigiisii ugu dambeeyay, wuxuuna dib u soo celinayaa xasuustii Paul oo dareenno kala duwan ku abuurtay. Waa uu ka socday meeshii, wuxuuna sheekadii la wadaagay mid ka mid ah asxaabtiisa howlgabka ahaa, kaasoo lagu magacaabay Elaine. Isaga iyo waardiyayaashii kale waxaa loo wareejiyay goob lagu soxo dhalinyarada dhimashadii John kadib, iyagoo aan awoodin in ay daawadaan xukunno kale oo fulin ah. Maalintaas kadib, Paul wuxuu u soo kaxeeyay Elaine cariishkii keynta dhexdiisa ahaa. Waxay arkayaan jiir ku dhex nool cariishka, kaasoo noqday Mr. Jingles. Markii uu xayawaanka dareemay xanuunka dilalka dadka kale, waxa uu helay xoogaa awood ah oo awoodii John ah, ilaa iyo haddana waa uu noolaa. Sidoo kale, Paul waa 108 jir, caafimaadkiisuna wanaagsan yahay, sababtoo ah qayb ka mid ah awoodda John ayaa loo wareejiyay. Isaga iyo John markii ay gacmaha isqabsadeen si ay u ogaadaan runta ka dambaysa dilka carruurta. Paul wuxuu goobjoog u ahaa dhammaan dadkiisii uu jeclaa oo dhimanaya, wuxuuna dareemay in tanina tahay ciqaabtiisa dilka nin sida John oo kale ah. Muuqaalka ugu dambeeyay, Paul waxaa lagu arkayaa aaska Elaine. Wuxuu haddana waayay qof uu aad u jeclaa oo ah saaxiibkiisa.